السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa Maal Maxmuud casharkan waxaynu ku baranaynaa 10 kan erey meesha saaran ereyga koowaad waa apprentice erey waxaa jira la yiraahdo apprenticeship yani qofka markuu xirfad ama aqoon u baranayo marna jaamacad buu aada they go through the formal route of education sideedaadka secondary-ga jaamacada qofna markuu secondary ka baxo jaamacad ma aado kaliya waxaa loo diraa yani meel xirfad buu soo bartaa haday mechanic-nimo tahay haday maxay tahay electrician tahay haday plumber tahay haday carpenter tahay dhamaantood yes taas waxaa yiraahdaa qofka la hoos tagayo dhowr sano uu hoos joogo xirfadda uu ku baranayo ama iskuulka xirfadda waxaa yiraahdaa apprenticeship qofkaasna waxaa yiraahdaa apprentice waa qofkii wax baranaya yes he is an apprentice isaga xirfaddu baranayo ereyga labaad aptitude waxaa yiraahdaa yani haybada dabiiciga natural ability. For example, haddaan ku dhaho she has an aptitude for science ama for math yani xisaabta waxay u leedahay haybad dabiici ah yes iyadoo dhaqsay fahantaa haybad buu ilaahay u siiyey ereyga saddexaad arctic waxaa la yiraahdaa cirifka waqooyi okay haga ugu sarreysay adduunka waqooyiga the north pole ayaa la yiraahdaa arctic yes tropical waa meelaha kulul ama the northern part of this world meelaha ugu shisheeyay aad bay u qabowda it's very cold arctic ereyga afraad ama waagii hore ciidamada markay dagaalgalayaan dhar bay xiran jireen bira ka samaysan soo that qof markay safety ku dhacdo si aysan maqaarkiisa u gaarin waxa ay xiran jireen baa la yiraahdaa ama adigu waxaa dhahdaa dharkii gaashaan ahaanta u isticmaali jireen gaashaankii waa shield okay kana waa dharka la xiranayo the clothing yes so that this kugu dhacdo yani waranka ama safety laf birtaas unbay ku dhacaysaa moogii adiga kuma dhacayso yes ereyga shanaad ash waa dambas yes ash dabka markuu gubto dambaskiisa la yiraahdaa ash ereyga lixaad astonished oo wax markii la yaabtid I was astonished waan yaabanaa yes astonished were very surprised ereyga toddobaad axe mar qaarna loo qoro axe marna axe waa ax marna waa axe labada way saxan yihiin waa masaarta geedaha lagu guraa la yiraahdaa axe reer waqooyiga wuxuu yaqaanaa faas yes ereyga sideedaad bald waa bidaar bald yes bald for example my uncle is bald adeerkii bidaar buu leeyahay yes ereyga sagaalaad bamboo waa it's a type of tree waa nooc ka mid ah geedaha inta badan wuxuu ka baxaa yani let me give meelaha wabiyada inta badan wadamadan hadda Malaysia iyo Thailand wadamadaas ku badan yahay bamboo waa geed aad u dheer yani wuxuuna sameeyaa tube amal aad buu u qurux badan geedkaas hadii sawirkiisa aad raadin kartid waa wanaagsanaan lahayd okay ereyga tobanaad ugu dambeeyo bang waa cod hal mar buu wax dhacamal yes a sudden loud noise ayaa la yiraahdaa bang yes for example albaabka hadaad tuurtid hal mar qab kasi saas iyadana bang waa la yiraahdaa yes for example the door closed with a bang albaabkii amal buu yiri markuu xirmay ashka intaas ay ku yahay keep learning and have a good day bye bye